waxaan rabnaa inaan fariin u gudbino shacabka deegaanka Soomaalida sidaad la socotaan xanuunkan adduunka afay baryahan corona virus kaliya uu fidiyo waa xanuun halis waxaad moodaa in dadkeena ay u dhacsanayn oo xogaa la sahlanayo maadaama oo weli geeri fara badan iyo xanuun fara badan aan dalka laga sheegin inta keysay la sheegayna la leeyahay waa dad dibadaha ka yimid waxaad moodaa dadkeenu inay u arkaan in wax sahlan oo saf hoos ka dhamaanaya uu yahay kale qaabka loo dhaqmay markaad eegto marka talahan taxadar fadlan baa laga sameeyay xukuumadda federaalku maalin waxay ka soo saartaa awaamiir arrimahaas la sheegayo oo dhan waa arrimo loogu talagalay dadka in laga lagu badbaadiyo oo lagaga hortago cudurku intuuna soo gaadhin ama uuna si balaaran dadka u galin marka shacabka deegaanka waxaan ka codsanaynaa markii ugu horeysa in loo hoggaansamo awaamiirta xafiiska caafimaadku uu bixinayo innaga xaggeena xafiiska caafimaadku si joogto ah ayuu dadka ula socodsiinayaa xaaladaha ku saabsan cudurkaas waxyaalaha la arko qaabka in la isaga difaaca ay tahay taxadarada in la sameeyo ay tahay si talantaaliya loo soo jeedinayaa qaadashadii baad moodaa inay dhibaato ka jirto arrimaha dad si dhib badan ee hadda wax laga qabto u baahan waxaa ka mid ah meelaha isku ururka meelaha aan loo baahnayn in lagu ururo waxaa ka mid ah muqaaxiyaha ka mid ah masaajidada ka mid ah waxaa ka mid ah meelaha shaha lagu cabaa ka mid ah meelaha lagu caweysimo ama telefishinada lagu daawadaa ka mid ah marka waxoo dhanba waxay u baahan yihiin in taxadar laga sameeyo dadku waxaa la yidhi 1 mitir ugu yaraan 1 mitir iyo badh ha kala fogaadaan hadday meel fadhiisanayaan hadday wada hadlayaan gacmaha yaa la iska salaamin gacmaha la dhaqdo oo mar walba la waxeeyo waxyaalo noocaas laga hadlay wixii oo dhan had moodaa deegaankeena in meelaha qaarkood gaaraan caasimada Jijiga wax ka soo qaad ba ayna lahayn ka arrinta dadku iska ilaaliyaan mar kale waxaan u sheegaynaa in awaamiirtaas xafiiska caafimaadku bixinayo sida ay yihiin loo qaato ta kale waxa weeye arrinta ku saabsan masaajidka oo kale masaajidada oo kale maadaama dad fara badan isugu imanayaan anagu waxaan leenahay oo ku talinay maalinka hore aan ku talinay jaamacaadka iyo jimcaha intaba waxaan dadka kula talinaynaa inay ka fiirsadaan intii tegin ka hor oo ay eegaan isbabar dhigaan khatarta ka iman karta iyo waajibaadkooda diiniga saaran inay isu miisaamaan oo qofka haddii waajibaadkiisa waxyaala fara badan diinta islaamka ay fududaysaa jirta markaynu safar ka nahay salaadda waa laynoo fududeeyey markaynu xanuunsanayno soonka waa laynoo fududeeyey marka annaga culmo fadwa bixinaysa ma nihin oo hadda taas waxaan u deenaynaa dadka aqoonta u leh laakiin caqliga caadiga saliimka wuxuu sheegayaa meelaha dhibaatooyinka naftaadu kaa soo gaarayso inaad iska ilaaliso haddana way caddahay in dhibaato ay kaa soo gaarayso urur meel la isugu soo ururayo oo xanuunkan uu ka fidayo marka taana dadku inay taxadar ka muujiyaan ayaan kala talinaynaa waayo carruur yar baxafada inoo joogta dad jilicsan waa yeelaag jooga qof xitaa hadduu dareemo anugu dhalinyaraan ahay oo intaan tagaan soo noqonaya waxa weeye waxaa laga yaabaa inaad dad nugul u keento xanuun baa laga yaabaa marka shacabku taa ka taxadaraan arrintaas mar kale waan ku celinaynaa waan ka waaninaynaa dadku inay jamaacadka ay ku tagaan xilligan labada toddobaad ee la yidhi dalka taxadar gaar ah la sameeyo inay iska ilaaliyaan weeye ciidamada ammaanka kale waxay la socdaan in xadkii hal la xidho la yidhi oo amar ka soo baxay dowladda federaalka xadka in la xidho taana inay fuliyaan oo xadku inuu xiran yahay ay ogaadaan oo waxyaalaha daruuriga ah ee ka soo gelaya waxaas waa gaar laakiin guud ahaan inay dhaqdhaqaaq fara badan oo xuduudaha ka soo gelaya ay ilaaliyaan taana amarka inay qaataan iyagana yaa la faraya waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu